قال هيا دلكو قيسي ديرانو قيقو دنتيو قشكي عن مرتدى كوكم أينيو قال هيا دلكو قيسي ديرانو قيقو دنتيو قشكي عن مرتدى كوكم أينيو سمعيو كتار قمعيو رساس سمعيو كتار قسيقان كلابني قد كوسلان دب كرب سار دب تجي دب مدن مدحويني waxaa salaantaada u diyaara cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida tukarraq mudane madaxweyne ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدليو يدعو يكن صلاة عن كسد Soomaaliland يبدون dadka shaqeeya ee qaranka u shaqeeya qaar waliba hawl bahaya laakiin mid waxa laga yaabaa shaqada inuu waxwey lacag ka raadinayo oo uu gaaro cad iyo shaar cad ka xidho inta badanna qaliiro dabeetana isagoo kudajiraan gaarin macaan iyo uu qaado dhiikar hawl la-aan darteed mid waxaa laga yaabaa inuu hal iyo habeen usoo jeedo intuu nool yahaan o dhan inuu arday waxbaro oo nashii tabcanin oo macalimiinta waa taqaanin qaar waa dhakhaatiirta oo isagoo habeenkii aroosa oo habeenkii horwey guri galaa saacaddii arooska lagala raabo laga dhaqaaqo telefoon baa soo dhacayo waxa laga qalin baa kusugaayo islaam baa isku mudgala soo orod markaasuu kasoo carara qof waliba qaranka hawsha u hayo dhib intiisa dhib waa filanta laakiin shaqada laysku wada raacsan yahay oo laga yaaba inaan dheef badan lahayn laakiin karaamo iyo ixtiraam iyo duco loo hayo bini aadmina wuxuu hela karaama ugu weyn halka ugu karaamo weyn ee ummaddu isku raacsan tahay hadda ummadahoo dhan ta maraykan ta shayna ta Soomaaliland iyo tu waliba waxa weeye ciidamada qaranka waayo ciidamada qaranka waa astaantii qaranka maalintii dhibood ka baxday halkaa waxaad ku qaaday calanka Soomaaliland astaanta qaranka qof kaloo qaadan kara ma jiro qof oran kara qof meel maraya oo gaarigiisa wata ama lugeynaya ama socdo istaag oo maqlaya ma jiro qof ciidanka ahay marka waxa weeye ciidanku awoodii qaranku sidaa garaado kasta ha ahaadee awooddaana waa wada leeyahay ilaa janka u sarreeya ilaa dabla waxay isdheeryihiin waa iyaga dhexdooda markaas xukumayaan ayaa kolkaas kor dalacday adigu wax xukumaysaa ciidanka laakiin ummadda oo dhan askar ama booliiska ama taradeega xukuma halkaa joogta waxaad ku tahay calankii awoodii waad ku joogaysaa bini aadmigu wuxuu nool yahay waa karaamada wuxuu nafsha reemiga naf karaamo weydi haska dhimato waayo xayawaanku wax bay cunaan oo way dhergaan oo way dhalaan laakiin bini aadmigu wuxuu ku nool yahay waa han iyo qaab iyo sharaf iyo aragti rag badan oo halkan jooga oo idinka odayaal idinka ah laakiin aniga iyagoo caruura ii yimid oo baashafan xan hortaagan ka mid yahay iyagoo yaroontiina ka yar ilaa maanta ilaa maalintaa waxay taageen front iyo qaar badan oo kale rag badankiisa mid waliba qaar baa laga yaaba 50 sano marayaan hawshaa gashaan ha ku caloliyoobina haddaad mararka qaarkood aragtaan guryihiina iyo dantiinoo dalacan ha ka caloliyoobina kuwa samaha aa gelaysaan iyo nafta hubaysaan iyo dalka waxa u qabanaysaan ilaahay meel kale xisaabtaad ka siinaya ubadkooda ka siinaya oryahooda ka siinaya caafimaadkeeda ka siinaya ifi aakhiradeeda ka siinaya markaas waa soo gootaan markaa dhibtaa qabtaan iyo dheefyaraanta iyo hawlaha jira marnaba iyo shaydaanku iduusuusi daraad markaan marayay meesha laa seeto gabar baa iga heshay waa ila hadashay soo dhawaatay waxay ku tiri adeer madaxweyne xaas askari baan ah 15 sanadood xagga frontka hore jooga
toddoba carruurna anigaa koriya waxaad yeeshaa carruurta askarta iskuullada bilaash ka dhig intaas baa ku diray anaa carruurtaana iyo isagoo ha maqnaadee bal ka warrama yani waa cajiib ilaa carruurtii iyo dumarkiiniba saa u talaantay waxay codsatay isagu ha maqnaado shan toban suniga maqay toddobada carruur ah bada hargeysaan jaamacadda ku haya mid halkan u joogaa waxaad yeeshaa madaxweyne wax kala kogoran maa isugu hayn dalka inoo daafaco ama carruurta waa la rafanayaa laakiin carruurta iskuullada waa qaaliyahay carruurta ciidamada xagga hore uga dhig bilaash waa ra'yigii guntan oo la geyn doona golayaasha xuquuqda askarta haddii la yidhahdo gabadha caqligeeda halkan maanta warkaan idiin sidaa iyo farintaan noo sidaa waa maxay horta waxaynu nahay ciidan nabadoona oo aan cidda ku duunayn ee dalkiisuna ilaashanaya oo wixii kusoo xadgudba iyo wixii fidqaada ka wada u qabanaya waxaynu nahay ciidan aan cidda weerar ku ahayn waxaynu nahay ciidan nabad soo waday intii uu jirayba ilaa maalintii la aasaasay oo dadkana kala ilaalinaya dalkana ilaalinaya walaaladaan iska soo horjeedo reer puntland weerar kuma nihin ma nabcin waanu nabadgelinaynaa iyagana intaa leeg baanu ka rabnaa waxaynu doonaynaa waxaynu aynu ina dhex taalla dooda ahalkani waa deegaan reer iyo waa xadka ingiriiska intayna haysta waa intaase inaynu geed hoostii ku xalino ee ayna arka iskaga lahayn iyagana ilaahay inuu galansiiyaa baan ka rajaynaya waayo soo baahani sabab kale oo maanta wax hadal lagu dhamayn karo oo geed hoostii lagu dhamayn karo waxay la tahay waa khaldaya ninka weerar ku gelaya shan joor baa waxay ii yimadeen ninka ka wakiilkaa jimcadda kala raaxaysa iyo egan iyo africa uninka 5 goor bay diyaaradeeda ku dul mareen xagga Garowe aniga ku mareen 5tii goor baan nabad waan la saxeed 4 qodob baan mar walba anoo idinka ka wakiilo ku heshiiyay waa oo noqon anagu weerar mawd duulimaad kuma hin dal kale iyo dad kala toona cid walba nabad baan u wadaa gudaha dalka ka wadaa waxaanu heshiis ku nahay iyada oo dalkiis Somaliland caalamka aqoonsanaa ee loo jiray Somaliland protectorate lixdankii ay waliba qayb ka tahay halka ay walaaladeen laga hor yimaadeen aan joogsano inaan ka wada hadalno waxaan ogolaanay xabad joojin waxaan ogolaanay in maxaabiista la isu bedelo waxaan ogolaanay dadka deegaanka in loo soo daayo waxa la dhinac walba wixii gargaar iyo taakuleen la siinay dadka barakacayaasha ee abaar waxyeelay 6 bilood nimanka kartaniya Garowe saaxiibadeen ayaa arrintaasi xaggooda ka dhamaan lahayd maantada hadda ku dhawaaqana diyaar been u nahay waayo inagu cidna weerar iyo calal xumo iyo daandaasi ku wada waxaan idinku ducaynaynaa oo idinku hambalyeynaa oo idinku kalsoonahay inaa idinku nabad doonaya dalkii daafacaysaan oo inta goor la idin soo waran marna inuu xitaa weerar rogaal celina difaac mooyaane maynaan samayn marna iyago diyaar garooyo maynaan difaac intaan weerarka soo qaadan weerarka ku sameeyna akhirta attack oo suuq mar walba waxaan warnamayaa weerarka nabad gelisaan sababaha hadda soo wada jirtay wixii ka dareen difaac lagu yimaado ilaahay inuu gargaaray inuu istafaa waayo nin qori kula soo cararaya dimaar barka laakiin inagu waxayna doodo ku dhamaysanayna dagaal la uma socono dalkayga dhexdiisa aan uga haysataa waa nagu hor joogsateen waa idin fadhina wali xabada ku darsanaha laga daayay walaal farisa badan waa inta qura dadka deegaanka walaaltinimo iyo wada tashi iyo Somaliland oo sana wadna arintan socono farintan oo xasaawata aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa dadkiinu inay jecel yihiin inuu qof walba naftiisa horeeyo xishoodkii afka iyo niyada mooyaane dee waa ogtihiin tii koob caanaha saytii la wariyada haduu bixisay kee boqol dheeraha la bixiyay dacay la ka dacay tuula Somaliland oo ciidanka qalbiga ku hayn oo waxa la qashay dadkuna waa wada inta insha Allah waxaan ugu ducaynayaa fi aakhirsan ilaahay Allah idin hayo in dhibaatooyinka badan ay qabtaan ilaahay inaynu waartiqaad xalilo inuu soo dejiyo waxaan ku amaanaynaa sabarka oo yarateen mutaaqabtaan idinka qoysaskiinu laakiin qaran baa dhisan qaran kale hawsha suulay aad iyo aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi